waxa weeye aniga iyo saaxiibkay Cabdiqaadir Asmaan Dubad Cabdiqaadir adoo mikrofoonka ku dhaweynaya afkaaga bal ka waran ma dareenkaaga jooga magaalada Burco hadda saad u aragtay wallahi jooga galabta aad u fiican alxamdulillaah rabbil caalamiin salaadii maqrib baa la aadimay magaalada dadku way soconayaan waxba la kaysanaya suuqana oo suuqa ku caanka kala iibsiga dharka iyo waxyaalaha dumarku isku qurxiyaan marka wada aragtay dadku soo soconay magaalada jooga la aad u wacan alxamdulillaah rabbil caalamiin waan gartay galab wanaagsan malnay dhamaan ka waran magaaladadan dhalinyaro badan dalkii ka tagay ka taareebay adigu maxaad ku dooratay inaad joogtid wallahi waxaan ku joogay jooga xorta nimcada waayo sad jeeshii baad u talaabsanaysaa oo soo toosnaa waa saxana marka taariikhda maanta waxa weeye waa bishii 12 keedii 2015 waa aniga Cabdimalik Sheekh Muuse Cabdon iyo adiga Cabdiqaadir Ismaan waa asxaabta toos meel kasta ay joogto ay salaamina gabadhii baa maxay is qabsatay marka insha Allah ka dhaqaaqi doonaa anaguna halkan oo yani maxay suuqyada ugu ciriiriga badan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer xilligii goorta qorraxdu way sii dhacaysaa laakiin jawigu aad iyo aad buu qurux badan yahay aad iyo aad buu wanaagsan yahay يعني هو جو جميل وشاعر كورة شوي قد دلكينا ميان وهذا قرح بدنا والله يرنتي واحد وراك راتشوي شوي كمان أحسن مترو وهي شوي مركو حرية شوي قاون أحسن هذا حركو قاضن يسوي وهي ما أنت لكن تلقي تاري ملك كيف تشوجان شوي حرق قاضن ما لكن يمكن نيجي شوي حرقا مقالد كل إحنا الحمد لله رب العالمين مركز دتك أيكو أجمر أيان أسكو أفتين أفسمال والجود هذا يا أهل كيف تشوجا اسكو دقنتي وهي إما قبل شيء بنروح كنا البقول كذا حنون كرادوي ساعتهم يسكرنا سنة ويكون مقعابي أنا ويسلام إنسان لكن ميل كلام مركز تكتو وإذا نسقاف لا أنت أفكر ولا مركز أفهم يصير ما هي الجود هذا يعني كسي يعني يقول عنه إن هذيك اللي حمنا ين كلا تونا كلا قرن يصير لا بركة مركز لوش كيسني وان قرتي عادي ولا ما حلو هي وراي نسعنا waxa weeye waaniga iyo saaxiibkay Cabdiqaadir Ismaan Dubad oo dhaxmarayna wadooyinka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Cabdiqaadir waxa weeye dad bayna wehelinaya assalaamu alaykum yani ka waran maxaad adiguna waxaad ku dar la intaas waxaan ku dar la fariin maalan ka dir la runtii wadan walba dhalinyaradiisu ba mustaqbalkiisa hagaajiya meel kasta joogtaan waxaan leeyahay wadanka ku soo noqda kuwa sii socday imka taariikhdeena waxaan leeyahay ka jooga wadankii nimcada taala alxamdulillaah rabbil caalamiin nabadgelyo iyo xorriyad ayaan ku dhex marnay caafimaad galabta oo suuqyada magaalada Burco ayaan dhex lugeynana marka waxaan leeyahay intaan wadanka aanu qacanteena ka bixin ee ajaanibtan ku soo qolqolaysa aanay si yar wadanka gudihiisa wala wareegin kuwiina maqan iyo kuwiina joogaba toos ayaan leeyahay oo ku baraaruga horumarka wadankan aynu ka soo wada shaqeyno meel laga soo dejiisano intaasaan leeyahay waxaan filayaa inaan isku dareennahay waayo waxay aamineen dhulkoodii ilaahay baa subxaanahu wa tacaala noo nimcayn doona insha Allah bidmillaahi kariim kana nimcaan ku jiraa iyo nabadgelyo iyo barwaaqo waayo waxa ugu qaalisan adduunyada qof bilaadan ku noolaado waa nabadgelyadina maanta oo haysano inaga ku dhex marna bulshadeena ku dhex taagan waayo waxa jira meelaha qaar aanad saa u dhex mari karin inaad fiideo duubta daaya aanad waxaan ku laba talaabo istaba dhigi karayn marka waxaan leeyahay dhulku waa nabadgelyo waa xorriyad alxamdulillaah rabbil caalamiin waa wadan islaam 100% waxaan leeyahay marka wadankiina ku dhiirada koob joogana waxaan leeyahay ka tagina duulayaan idin rajeynaya baan leeyahay meel kasta joogtaan wadanka inaan joognaay ku baahan wayahay waa warbaahinta wacyigelinta iftiimisa arrimaha u baahan in la iftiimiyo oo ku hawlan inay soo gudbiso wadan jacaylka sidii loogu abuuri lahaa dhalinyarada inay wadankooda jeclaadaan ay ogaadaan qiimaha dalkooda oo ay markan beegsanayso sidii loo wada ilaalin si wada jira maadaama wadanku ka dhaxeeyo ummadoo dhan si loo wada ilaalin lahaa dhalinyaradana loogu beeri lahaa inay wadankooda jeclaadaan waxaanu joognaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer tan intaan ku kulmi doono qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena toos iyo dal jacaylka waa aniga Cabdimalik Sheekh Muuse Cabdon iyo saaxiibkay Cabdiqaadir Ismaan Dubad iyo magaalada Burco idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh